السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada muuqaal cusub ee qiso kaloo cusub. Saaxiibayaal, qisadeena maanta waxay ku dhacday ama aan dhihi karnaa way ku saabsan tahay inta badan ay ka sheekeynaysaa wiil lagu magacaabo Kamaal wuxuu dhashtay sanadka markuu ahaa 1978 wuxuuna ku dhashay dalka Tunisia. Kamaal waxaa lagu soo tuuray banaanka isagoo isbuucyo dhalan, macnaha isagoo isbuucyo jira ayaa waxaa lagu soo tuuray qashin qubka. Kadib waxaa qaaday booliskii iyo waa la qaaday, waxaa la geeyay meesha lagu xanaaneeyo caruurta agoonta. Macnaha waxaa jirta meel lagu xanaaneeyo caruurta agoonta, ilmaha la soo tuuray, ilmaha aan daryeel ka haysan, meesha ayaa la geeyay Kamaal. Halkaa wuxuu joogay 1 sano, 2 sano, 3 sano ilaa uu ka gaaray 10 sano. Halkaa ayuu joogay, halkaa ayuu kusoo barbaaray Kamaal. Markay 10 sano u gaartay oo uu 10 jirsaday, Kamaal wuxuu ka soo cararay ama uu ka soo baxsaday meesha lagu barbaarinayay caruurta. Kamaal markaan wuu soo baxsaday oo wuxuu soo galay magaalkiisa. Kadib Kamaal markuu soo baxsaday waxaa helay ama qabsaday famil adiga ka kooban 6 qof, wiilal iyo gabdho. Familkaas ayaa qabsaday, laakiin familkan ma ahaynin famil fiican. Waxay ahaayeen famil muqaadarad isticmaala, famil aan fiicneen, famil tuuga ah, famil ku habbooneen in wiil sida Kamaal oo kale in uu gacantooda galo. Adiga familkan waxay ahaayeen famil aad iyo aad u xun oo wax wanaagsan dhan aan sameyneen. Adiga waxay xumaane ayaga ay soo tagtay. Familkaas ayaa Kamaal helay, way qabsadeen, xagood ay ku koray. Markuu xoogaa weynaaday Kamaal, familkan waxay bilaabeen in ay adeegsadaan oo ay guriga shaqaale iyo waxaas camal ka dhigtaan. Adiga siday u adeegsanayeen oo xagooda ugu adeegayay, Kamaal waxaa ku adkaatay xaaladii, shaqadii ay ku ziyaaday. Qoyskan waxay bilaabeen in ay kula dhaqmaan sida adoon oo kale, in ninkan uu adoon yahay oo kale ayay kula dhaqmayeen. Wax badan ayay caawinayeen. Adiga nolosha ayaa aad ugu adkaatay. Ugu dambeyn Kamaal wuxuu gaaray da'da 20-meeyada, wuxuuna gabi ahaanba ka soo tagay magaaladii iyo dadkii ula noolaa. Kamaal wuxuu haddana ka soo tagay familkii oo wuxuu soo aaday magaalo lagu magacaabo Suusa. Kamaal magaaladan markuu imaaday, cid kama yaqaano, qof uu ka saayo ma lahan, waa keligiisa. Ugu waay qof wuxuu cuno siiyo, wuxuu cabo, meeluu seexdo. Wuxuu ahaa mid wadooyinka iska seexdo oo aad u daruufaysan, ma helin wax daryeel ah. Qof walba markuu wax weydiiyo, wax isii, waxaa cuno, waxaa cabo, meelaa seexdo, cid daneynaysay ama qof wax siinaysay ma jirin. Sababtoo cid taqaana ma lahan, meeluu ka yimaaday iyo meeluu u socdana cid og ma lahan. Marka qof walba saas ayay ugu jaakiraysay oo isagana duruufta iyo xaaladda adag ayuu ku jiray. Maalin Kamaal isagoo meel sidaa u fadhiya, marka meesha uu fadhiyay waxaa ka soo horjeeday kabiin waxaa la dhahaa adiga branji waa taqaanaa maho. Macnaha adduunka waxaa jiro meel oo wadooyin ku samaysan, adiga meel saan u dhisan, qofku u gala lacagii wuxuu ku shubaa oo telefoon ku soo hadla waa ka soo baxaa. Meeshaas ayaa la dhahaa meel adiga kabiin ama sida branji oo kale. Qofka hadduu u baahdo wuu galaa, qofku wixii wacna waa soo hadla, waa ka soo tagaa, waa ka baxaa. Intiin badan waa taqaaniin arajena. Marka meeshaas meel ka soo horjeeda ayuu fadhiyay. Asiga meeshaan u fadhiyaa, meeshaan kabiinka ama meeshaan branjiga ahan waa ka soo horjeedaa. Marka isagoo saan isaga fadhiyo, baahi daran ay hayso, 2 maalin aan waxba cunin, ayaa wuxuu arkay nin oday ah oo adiga qiyaas ahaan 80 sano jiro oo soo socda. Ninkan odayga soo socda oo sii galayo meeshaan kabiinka si uu telefoon ugu hadlo kadibna u baxo. Marka odaygan wuu soo socday, wuxuu ahaa oday duqoos 80 jir baakoor wato. Tartiib soo u socday wuxuu galay kabiinkii. markuu galay
kadib Akram wuxuu fiiriyey midig iyo bidix, hareerihiis ayuu si fiican u fiiriyey, qof socda ma lahan, dad dhan wuu waayey. Kadib wuxuu nafsad ahaantiis isdhahay odaygan amuu lacag badan wataa. Fiiri marka wuxuu isdhahay odaygan amuu lacag badan wataa oo wax cunaa ka heshaa. Kadib ayuu haddana mar kale isdhahay ka warna haddii aad odaygan weerarto oo aad lacagtii iyo wixii haasto aad ka qaadato, sababtoo oday waaye ma iska celin karo, meeshaan cidlo waaye, arrintaas ka waran. Marka Kamaal arrinta ayuu ku fikiray, kadib wuu kacay, wuxuu kabiinka la galay odayga. Markuu saas u galay, wuxuu gadaalka istaagay ama uu gadaal ugu tagay odayga isagoo ka dalbanaya lacag. Marka way doodeen odaygii iyo Kamaal. Odayga wuxuu wilsanaya lacag isiisaan, odaygan wuxuu dhahay lacag ma hayo. Kamaal marka xogaa markaan wuxuu bilaabay inuu odayga dagaal iyo jijiitaan wax geliyo. Kadib odayga wuxuu dhahay wiilkayga Allah ku dhaafo, idhaaf, aniga lacag ma haysto, waxba ma hayo saan. Marka intuu odayga waxyaabahaas dhahayo, Kamaal wuxuu mindi geliyey odayga. Wuxuu geliyey mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad. 3 mar ayuu odayga wuxuu geliyey mindi ilaa uu odayga ka dhaco. Kadib markuu odayga dhulka ku dhacay, Kamaal wuxuu bilaabay inuu baarto odayga jeebkiisa, inuu baarbaaro. Kadib wuxuu ka helay 3 diinaar. Waxaa laga yaabaa qaarkiina is dhahdaan diinaarka lacag badan oo qaali waaye, laakiin wadan badan isticmaalaan, wadamo qaarna wuxuu u yahay mid qaali qaarna mid iska normal Marka 3 diinaar oo Tunuusi ayuu wuxuu ka helay odayga jeebkiisa. 3 lacagtaas marka la qiyaaso oo idan la qiyaaso waxa waa lacag $1 waa lacag $1 ayuu wuxuu ka helay jeebka odayga. Soo u baarinay oo u baarta u gadiyay halkaas $1 ayuu helay oo odayga u dilay. Marka saaxiibkaaga wuxuu aaminsanaa odaygan lacag badan oo haystaa saan waayo. Kadib wuu dilay, wax $1 ka yar ayuu helay. Kamaal muxuu sameeyay leedahay? Kamaal ma shalayay ma ooyay qabac maya. Kamaal lacagtii ayuu qaatay oo meesha ayuu ka baxsaday. Kadib arrintii waa la ogaaday, booliskii iyo wixii bay ogaadeen, barnaamijkii wuu faafay ilaa dilkaas loogu magac daray dilkii kabiinka. Macnaha wuxuu ka dhacay maho meeshan oo telefoonka laga wacnay waxaas. Marka meesha loogu magac daray, magaalada dhan waa la ogaaday. Kadib dadku waxay dhahayeen dilaagan arxan darna oo odaygan soo u dilay maxay tahay. Adiga waxaa laga sheekeynayay dilka odaygan iyo dilaagan dilay, qaabku u dilay, qaabku arxan daran yahay. Adiga waxyaabahaas laga sheekeeyay. Booliskii waxay bilaabeen inay raadiyaan, kor iyo hoos ay ka raadiyaan oo ay baaraan, laakiin way heli waayeen dilaaga. Macnaha Kamaal way soo qaban waayeen. Waxay sidaa ahaataba kadib Kamaal wuxuu isdhahay markuu dilka geystay kadib wuxuu isdhahay markaan bis waaye, odaygaas ayaa dishay, dilaa ayaa tahay. Macnaha naftiisa asaa isku qirb in uu dilaayahay oo odaygan dilay. Wuxuu dhahaniyo noloshaada wax faa'iido ay leedahay ma lahan, waxaa isticmaashaa muqaadaraad iyo waxyaabahaas, dilkan waa geysatay. Macnaha wuxuu iska dhaadhiciyay in ay noloshiisa markaan ka dhacday oo uu wax natiijo kale u lahayn. Marka wuxuu go'aansaday in uu sidaan isaga noolaado oo wuxuu dilay uu dilo, wuxuu cabay uu cabo, wuxuu balwadu isticmaalo. Markii inuu saan isaga dhaqmo ayuu go'aansaday. Wuxuu dhahaniyo saan igu socotaan faan. Maalin gabar 15 jir ayaa waxay ka soo baxday gurigooda. Kamaalna wuu arkayay markay gabar soo baxaysay. Kadib markuu arkay wuxuu daba kacay gabadhii way socotay waxay dhaaftay guriyo badan ay saas u dhaaftay. Kamaal wuu daba socday. Ugu dambeyn Kamaal wuxuu ku qabtay meel dhismo hoostiisa. Gabadhii gadaal ayuu uga maaday, afka ayuu gacanta ka saaray. Kadib wuxuu la galay meesha dhismahii hoostiis ayuu la galay. Kadib wuxuu sameeyay gabadhii ayuu kufsaday, wuu dilay, waxay haysatana wuu ka qaatay. Kadib wuu baxsaday. Fiiri xaasnimadiis
wuu kufsaday, wuu dilay. saas ma u dhaafine lacagtii haystay iyo wixii wadatana wuu ka qaatay, kadib wuu ka baxsaday meesha dhan. haddana wax badan kama soo wareegan, waxaa dhacay dil kale. marka dilkan ma ahan hal qof odaya la dilay iyo gabaraasaan leela ma ahan, oo dilkan waxaa la dilay oo lagu xadgudbay kadib la dilay 4 gabar. waa 4 gabar uusan cumrigooda ka weyneyn 10 sano. macnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo aan weli 10 sano gaarin. gabdhaha reerkooda way raadiyeen, intaa laga raadiyey waa la waayay, gabdhihii aaway. marka waxaa lagu xisaabay in at least la kufsaday, in meelihii ku dayacan yihiin. ugu dambeyn markii gabdhahan la baaray waxaa la ogaaday gabdhahan in la kufsaday kadibna la dilay. meedkooda marka la baaray 4tooda, mid waxaa laga helay dhismo hoosteed, mid waxaa laga helay xaafada dhinaciis, mid waxaa laga helay meel supermarket u dhow, mid waxaa laga helay meel kale oo ganacsi waxaas ahaa. adi midba meel ayaa laga helay. oo qofka dilaagan ma ahayn qof oo hal meel wax ku dila, midba wuxuu ku dilayay meel oo dantiisu ka gudanayay, kadib uu dilayay oo ka soconayay. marka 4 gabar midba waxaa lagu dilay meel, midaan inta mid kale inta. ugu dambeyn gabdhihii meedkooda iyo waxooda waa la helay. kadib booliska waxay sheegeen in dilaaga ama qofkan dilka geystay uu hal qof yahay. macnaa waxay dhaheen ma aha dad badan oo dil geystay. macnaa sababta warkaas keenan wuxuu ahaa dilal badan ayaa dhacay, magaalo hebel wax lagu dilay, magaalo hebel wax lagu dilay. markay waxaas dhan fiiriyeen booliska, waxay ogaadeen in hal qof uu wax dilay. dilaaga buu hal qof yahay, uusan dad badan ahayn. marka qaabku wax u dilo, sidii wax u ugaarsado, aday akshinada dhan oo suubiyan ay hal tahay. marka waxyaabahaas ay u fududeeyay booliska horta inay ogaadaan in dilaagan uu qof yahay. hadan dilaagan wuxuu xariif ku ahaa mataqaanaa wax cadeen iyo saameyn dhan makatageenin. markuu qofka dilo wax mindi iyo waxaas makatageenin, wax qofkan meedka uu dilaa wuu ka takhalusaa, wuu ka baxaa. wax saameyn ama dabagal lagu soo dabagalaya ninkan ma lahaynin. ilaa ugu dambeyn dilaagan loo bixiyey dilaaga Tunisia. sidoo kale waxaa loo bixiyey dilaaga Safaaqis. iidan waxay ahayd magaalo galo dilil badan ka dhacay, oo xitaa wuxuu ku dilay haweeney la qaba. kadib markuu dilay wuxuu ku soo tuuray wadada. sidoo kale isla xilliga wuxuu geystay 3 dil, oo mid wuxuu ka geystay Janduuba, midna isla Safaaqis, midna wuxuu ka geystay Suusa. macnaa 3dan Janduuba iyo Safaaqis iyo Suusa waa 3 magaalo oo kala duwan. 3daas magaalo ayaa haddana wuxuu ka geystay 3 dil oo kala duwan. oo horaan idinku sheegay qofkan hal meel wax ma ku dilabo, magaalooyin kala duwan, meel kala duwan ayuu mar walbo dadka ku dilaa. marka daliilkii wuu batay, arintii way ziyaaday, barnaamijkii wuu ka daray. markaan farkabax ayuu taaganyahay, qofaa la dilay, qofaa la kufsaday, intaa laga baxay magaaladana sane. marka arinkii wuxuu noqday arin argagax leh oo farkabax ayuu gaaray. adiga waxay maalmaha socdaanba, ugu dambeyn xariifkan wuxuu gacanta ku dhigay gabar. gabadhan muxuu ka rabaa wax kale ma ka rabo in uu dilo bis. laakiin gabadhan way ka baxsatay, oo nasiib wanaag gabadhan muusan dilin, way ka baxsatay. kadib markay ka baxsatay waxay u tagtay booliska, waxay sheegtay calaamadihiisoo dhan. waxay dhahday arintaas ayaan la kulmay, ninkaas dilaaga ayaan kasoo baxsaday, waa wuxuu egyahay sidaan iyo sidaan, waxaas iyo waxaas ayuu wataa. adiga astaamihiisa dhan ayay sheegtay. kadib booliska waxaa u fududaatay in ay soo qabtaan. ugu dambeynna way soo qabteen. macnaha waa la soo qabtay dilaagii weynaa ee lagu magacaabayay Kamaal. wuxuu gagambado oo uu booboodo dhunto dad badan u dilo. ugu dambeyn wuxuu ku jiraa gacanta booliska. in la soo qabtana waxaa kaliftay fakashada ay ka fakatay gabadhan, oo ay cadeemo badan booliska siisay. sidaan ay ku soo qabteen booliska. Kamaal markii la soo qabtay
wax walba wuu sheegay oo wuxuu dhahay aniga waxaanahay qof kusoo koray nolol aan fiicnaanin, waxaanahay wiil agoon ah, waxaan iska ahay dhibane. Adiga wuxuu bilaabay calaacal. Kadib wuxuu dhahay aniga waxaan geystay 14 dil. Waa 14 dil. 14 dil ayaan geystay oo 14kana waxaan ku kala dilay magaalo kala duwan iyo meelo kala duwan. Kadib booliska waxay dhaheen anagu waxaan raadinaynay qof 13 dil geystay. qof 13 dil geystay ayaan raadinaynay. Halka qof dheeriyo xaguu ka imaaday marka. Adiga 14 aad dishay, anigana waxaan raadinaynay mid qof dilay 13. Marka booliska taa ma ka warhayaan ninkan inuu 14 qof dilay. Ay waxay raadinayeen qof 13 qof dilay bis. Kadib waxay dhaheen haywaaya noo sharax 13 sidii ku dishay, macnaa 13 ka noo sharax horta sidii ku dishay. Kadib wuxuu u sharxay sidii uu ku dilay 13. wuxuu dhahay mid meel hebel ayaa ku dilay, mid kale meeshan ayaa ku dilay, mid saas. Adiga wixii dhan ayuu u sharxay. Booliskana way fahmeen, ilaan way la socdeen muhu dilkiisoo dhacay, dil hebel dil inta. Marka ilaabinaya sheekadan xiligan uu sheekeynayo waxa waaye 2008 saaxiibkaaga la soo qabtay oo booliska gacanta ku dhigeen oona la wareysanayaa. Kadib wuxuu sharxay 13 dil, qaabku u dilay, meeshuu ku dilay, sidee wax ahaayeen. Adiga wixii dhan ayaa wuxuu u sharxay booliska. Kadib waxay dhaheen waayahay 13kan waan ogeen oo waan la soconay, adigana waa noo sharxay hadda. Marka midka 14aad arrinkiisa nooga sheekay, siduu ku dhacay, sidee u dishay, xilligii ayuu dhacay. Midkaas ayaan u baahanahay, midkaas nooga sheekay. Kadib wuxuu dhahay midka 14aad wuxuu ahaa xilli hore ayaan dilka geystay. Waxaan geystay sanadka markuu ahaa 1997. Dhageysaya xilligan la wareysanayo waxa waaye 2008. laakiin dilkan oo 14aad wuxuu geystay 1997. marka wuxuu dhahay 1997 ayaa dilka geystay. waxaan joogay uu dhahay magaalo hebel. magaaladaas hebel waxaa ka jiray xaflad aroos. xafladda aroos ayaan joogay. wuxuu dhahay marka anigoo iska baashaalayo, iska ciyaarayo, waqtiga iska qaadanayo, waxaa arkay uu dhahay gabar maasha Allah qurux badan, da'deeduna ay ahayd 23 sano. wuxuu dhahay gabadhaasi ayaan jeclaaday, waan ka helay. kadib waxaan go'aansaday in markii xafladda dhammaato oo ay banaanka soo baxdo in aan la hadlo. Adiga ugu dambeyn saaxiibka gabadhii banaanka ayaa soo baxday. gabadhii ayuu la hadlay, wuu la sheekaystay. marka way is soo raaceen, isagii gabadha way is soo raaceen. wuxuu u sheegay inuu jecel yahay, waa ku jecelahay, waa ka helay, waxaa rabaa inaan ku guursado. marka iyagoo saas sheekeysanayo oo soo socda waxay u soo dhawaadeen qabriga. marka waxaa jirtay qabri u dhow, macnaa waxaa jirtay qabuur u dhow xaafadda. markay qabuurahaas u soo dhawaadeen oo ay meesha soo gaareen, marka saaxiibka Kamaal sheeke iyo waa ka helay malisku ogeyno, wuxuu bilaabay in uu gabadh ku kala tuuro qabriga. gabadh ayaa wuxuu ku kala tuuray qabriga. kadib wuu weeraray, macnaha gabadhii ayuu weeraray, wuu u tagay. kadib sida ogeed ayuu sameeyey oo gabadhii wuu dilay. kadibna wuu baxsaday. marka wuxuu dhahay dilkaas waa dilkii igu horeeyay aan geysto. maqlaya wuxuu dhahay dilkaas waa dilkii igu horeeyay aan geysto. xilligaasna waxaan la joogay reer hebel. macnaha reerka uu sheekeynayo waxa waaye reerkii markuu meesha agoonta uu ka soo baxay, reerkii soo korsaday aabi. marka wuxuu dhahay xilligaas waxaa la joogay reerka, markaas ayaa dilkan geystay oo waa 1997. waana dilkii ugu horeeyay oo aan geysto, ma ahan dil dhow. ma fahanteen? kadib booliska waxay dhaheen alla maxaa tahay mid kheyr laabo ah, kheyr milid adiga. waxaa la tagay meeshii oo dilkii wuxuu ku geystay. wax walbana waxay noqdeen siduu isaga sheegay, oo waxaa caddaatay in uu gabadha meesha uu ku dilay. marka waxaa jirtay
dhalinyaro loo xiray dilka gabadhan, macnaha gabadhii oo 97 la dilay. Markii la dilay kadib dhalinyaro looga shakiyay in ay dileen ayaa la qabtay oo waxaa la geliyay xabsiga. dhalinyaradaasna waxaa looga shakiyay mid waxay ahaayeen mid xiriir leh, mid wuu iska jeclaa, mid wuu daba socon jiray, mid wuu ka helay. macna afartooda waxay ahaayeen kuwa gabdhaha u dhadhow oo lagu xanto ama la dhihi karo gabadhaas markii la baayo dadkan hebel iyo hebel iyo hebel ayaa lagu tuhmi karaa. sidoo kalena joogay arooskii, macna habeen gabadhan la waanayay ama la dilayay waxay joogeen arooskii, dad isku dhaw ay ahaayeen. marka afartaas wiil ayaa dilkan dartiisa loo xiray, waxayna xirnaayeen 97 ilaa 2008 ayaa waxay u xirnaayeen dilkan dartii. sida ay tahayna waxay ahaayeen dad beri ah oo aan dembi geysan. wax walba waxaa ka dambeeyey Kamaal ayaa dhexda ka soo galay, gabadhii wuu dilay, laakiin masaakiintan ayaa loo xiray. kadib markii xoogaa baaritaan yar la sameeyey waxaa caddaatay in ay wiilashan wax dembi aysan lahayn oo waxaa laga soo daayay xabsiga. dabcan ayaga way inkiraayeen oo wixii dhan aniga dembiyaan ma geysan, ana qoftan ma dilin. laakiin cid war ka yeeshay ama warkooda ulka qaaday ma lahan, oo waxaa la dhahay mar walba idinka ayaa disheen oo ayaga ayaa dusha laga saaray. laakiin ugu dambeyn waxaa caddaatay inaysan dilin, oo sidaa waxay ugu soo baxeen xabsigii la geliyey 97 oo waxaa laga soo saaray 2008. alxamdulilah wiilashii way badbaadeen, waxaana ilaahay ka sokow badbaadadan wiilashana badbaadeen, dil kale inuusan dhicin. waxyaabaas dhan waxaa ka dambeeyey gabadhii ugu dambeeyey ee ka baxsatay gacanta Kamaal. adiga sheekadii ay idin dheereen, ugu dambeyn Kamaal waxaa la soo saaray maxkamadda. laakiin inta aan maxkamad la soo saarin oo fadhi ugu horeeya maxkamad inta aan la fadhiisan maalin ka hor, qaadi wuxuu dalbaday in Kamaal uu abukaato qabsado. macnaha waxaa la dhahay qofkan dacwaa loo haystaa sax, laakiin waa inuu abukaato qabsadaa, sidaasna arrintii loo galaa. abukaato badan way diideen arrinta oo gacan ayay ka taageen in ay arrinta Kamaal galaan. kadib maxkamad ayaa waxay u raadisay abukaato arrintiisa gala. ugu dambeyn waxaa loo helay abukaato u dooda, inkastoo saaxiibkaaga wixii isla neecad yihiin, waxyaabaha qaar afka uu ka sheegtay, waxyaaba dhan qaar ay banaanka yaalaan. haddana si sharciga ayaa ah inuu qofka markii maxkamadda wax la soo saarayo in qof walba abukaatiis uu wato, intuu qofkan isdifaaci kara ama uu hadli karo uu hadlo. marka abukaatihii wuu baxay oo wuxuu xabsiga ku booqday Kamaal si uu wax badan ugu wareysto oo arrintiisa wax badan u ogaado, si uu macquul ugu noqoto in uu cafin ugu dalbo ama arrintiisa u fududeeyo. kadib Kamaal ayuu la kulmay, wala sheekaystay, wax badan ayuu ka hadlay. wuxuu weydiiyey marka waxyaabaha ku kalifay in uu dil geysto. horta wuxuu dhahniyo adiga maxaa ku geey in aad qof disho oo halhan dil aad geysato. kadib Kamaal wuxuu bilaabay in uu sidii iska cawaado, aniga qof agoona ahay, nolol dhibaa ku soo karay, reerra kala gacanta igu dhigeen oo ayagan aan wanaagsaneen, marka iyaga ayaan ka bartay dilkan iyo wax adiga war badan ayuu bilaabay saaxiibkaaga. kadib abukaati wuxuu dhahay aniga fursad iima siinin oo aan ku difaaco. macnaha wuxuu ka wadaa wax qaab ama wax aan kugu difaaco uma jeedo. niyo maxaa kuu geystay in aad qof disho, qof dhan oo bini aadan inaad disho maxaa kuu geystay, macnaha maxaa ka faa'iidaa uu dhahay. wuxuu ku jawaabay qaab la yaab leh oo wuxuu dhahay aniga waxaan dadka u dilaa si aan u farxo, si aan u raaxaysto, si caajiska iyo stresska i hayo uu iga qaadmo. aniga sidaa ayaan dadka u dilaa. macnaha saaxiibkaaga wuxuu dhahay aniga u farxo oo aan u raaxaysto, iskaga baashaali, waxyaabahaas dadka isaga dilaa uu dhahay. markaa dadka dilan waxaa iga qaadmaya caajiska, waxaan dareemaa farxad in habaa ahay, sababtaas ayaan dadka u dilaa. kadib abukaata wuxuu dhahay allah ku qaribo, war waxaas ma dadka loo dilaa. kadib abukaata wuu ka tagay. waxaa la gaaray maalintii maxkamadda. kadib abukaata wuxuu maxkamadda ku dhahay soo dhawaada, aniga idinma dhahayo wiilkan iska fasaxa ama wiilkan u naxariista ama waxaas iyo waxaas u sameeya.
midna idinma dhahayo. wiilkan waa soo arkay, waa soo wareystay, waxyaabo ku kacay waa waxyaabo wuxuushnimo ah, waa wax aan fiicneen, waa wax laga yaaqsado. adiga arin aan la jeclaysan ayuu ku kacay. laakiin waxaan idinka codsanaa in aad u fududeysaan ciqaabta. macnaha wuxuu dhahay haddii ciqaab oo noocaas iyo noocaas aad ku xukuntaan ama ciqaab weyn aad ku xukuntaan, in aad ciqaabta ka khafiifisaan. intaa ayaan idinka codsanayaa. marka sidaa ayuu dhahay abukaataha, oo intaa ayuu maxkamad ku darsaday, oo hadal kale u raaciyey ma jirto. adiga wax bayaan hadalka idin dheereen. ugu dambeyn Kamaal waa la xukumay, oo waxaa lagu xukumay dil toogasho, oo in la dilo ayaa lagu xukumay Kamaal. sababtoo ah wuxuu geystay dil aad iyo aad u badan. 14 dil ciyaar ma ahan. 14 dil oo xitaa dil caadusan ahayn. qaarkooda uu ku jiray kufsi, qaarkooda si qaab daro uu u dilay. haddana ma ahayn ninkan ujeedi iyo qaab uu qof fiiri. dad qaar waxaa laga yaabaa inay ujeedi wax u dilaan, inkastoo dil uu yahay. laakiin qof aniga ku dhahay si aan u farxo ayaan dad u dilaa ka waran. marka ugu dambeyn Kamaal waxaa lagu xukumay dil toogasho ah, macnaha isagan in la dilo. annafsu binafs waa sheekada. marka saaxiibayaal, sheekadeena maanta halkaa ayay nagu eg tahay. macnaa noocan ma xoogaa cabsi waaye. qaarkiin waxaa laga yaabaa in dilka iyo waxyaabahaas aysan jecleen. marka kaali noqda inta aan sheekooyinka dilka iyo waxyaabahaas jecleen. inta jecelna waxaa rajayna in aad sheekadan isaga raaxaysateen. marka saaxiibayaal, sheekadeena ama muuqaalkeena maanta waa inaga inta aynu muuqaalka dib u kulmi doono. ammaano alleh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.